aan ku bilaabe kurdida Suuriya ayaa sheegtay inay dawladda Suuriya ay ogolaatay inay gacan ka siiso sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerarka Turkiga. Ciidamada Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka waqooyi si ay uga hortagaan howlgalka ciidamada Turkiga ee gobolka Kurdidu haystaan ee dalkaasi. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada Mareykanka ee Kurdida la xulafada ay halkaasi isaga baxeen. bal aan eegno muuqaaladii ugu dambeeyay ee Suuriya inaga soo gaaraya. waa ciidamada Suuriya oo hub iyo kolonyo gaashaaman sita waxa la sheegayaa inay u ruqansadeen aaga Caynul Ciisa oo ku dhow Dalcabayd. maamulka Kurdida ayaa sheegay inay iyagu gacanta ku haynayaan siyaasadda iyo amniga gobolka. weerarkan waxa amray madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu bilowday toddobaadkii hore kadib markii uu ogolaanshiyo ka helay dalka Mareykanka. Turkiga waxa uu doonayaa in ciidamada Kurdida uu ka saaro xadka. duqeymo ayaa halkaasi ay ka fuliyeen iyadoo dad rayida iyo dagaalyahano labada dhinacba ay ku dhinteen. tafaasiil dheeraada waxa inoo haya Martin Patience. I mean, it's been extraordinary. America's stunning withdrawal. Bixitaanka Mareykanka ee waqooyi bari ee Suuriya ayaa waxay noqotay mid iyadu gabi ahaanba bedeshay sidii halkan ay wax uga socdeen. Kurdidu imika waxa ay xulafo la noqdeen dawladda Suuriya halkii ay markii hore kala hayeen Mareykanka. muuqaalada waxaa ka muuqda sawirada ciidamada Suuriya oo ku sii siqaya dhanka xadka Turkiga. waxay sheeganayaan Kurdidu in ciidanka Suuriya ay isku tixi doonaan xadka Turkiga, laakiinse waxay la tahay in ciidamada Suuriya ku soo jiray 8 sanadood dagaal aanay awooddaasi lahayn ee waxa jirta in propaganda badan la fidinayo. Kurdidu laakiinse waxa ay dareemayaan inay aanay lahayn wax ikhtiyaar mar haddii ciidamadii la soo weerarayo, waxaana ay isla markaasi xulafo la noqdeen ciidamada Suuriya kuwaasi oo ay taageersan yihiin Ruushka iyo Iiraanba. arrintan haddaba wax walba way isku murginaysaa. dagaalkii halkan ka soo dhacdana way isku murginaysaa, laakiin Kurdidu waxay uga dan leeyihiin in ay waxoogaa nabadgelyo ku helaan arrintan isku murugsan. وهاجاك هدي أنا ديب وقولنا قلنا واشنطن يجوانك أمريكا كي كلا بحين عيدمه دي جوجي وقوي سوريا مدحوينه دونالد ترامب أيا برتيس تويتر كسر دقة أذن وجدي كردية وقوي سوريا جوجا استجوا شيء إن يصير دينيان محابس أساسي وأمريكا كهال كاسي ديب وقصة نقطة برتيس تويتر كورك وصار دقة وح ومدحوينه يري أمريكا كو وح أي جعنتا كهاين نيان بيرو أي جعنتا كهاين محابس فربضان أو أيساسا كردية يو تركيا وإن أنا يصير دين محابستا أيو oo halkaasi joogta waxay ahayd in mar hore ay Europe dib u qaadato codsiyo badan oo aan u dirnay awadood waxa iminka waa inay qaataan buu yiri Europe weligoodna Mareykanka looma ogolaanayo inay dib ugu soo noqdaan. haddaba weli boqolaal qof ayaa ku nool xeryo ku yaala waqooyiga Suuriya qaarkood waa caruur waxa kamid ah 3 agoomaha oo ka yimid magaalada London oo daadooda ay u dhaxayso 6 ilaa 10 sano jir. Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir ayaa inoo haya. siligan dabadiisa waxaa jooga caruurtii ay ka tagtay khilaafada islaamiga ah. tani waxay ahayd toddobaad ka horun weerarka Turkiga. caruurtan oo dhani aabba iyo hooyo ma laha, waalidkooduna waxay ku dhinteen dagaaladii Daesh. waa halkan meesha aanu kula kulannay haddaba Amira waa gabadh yar oo u dhow inuu ilowdaba qofkii ay ahayd. Amira waxaa laga kaxeeyay Britain iyadoo 5 jir ah, laakiin waxay xasuustaa noloshii laga qaaday oo weli wax yar u sii ifaysa. waxaan aadi jiray goobaha lagu ciyaaro, waxaan u tagi jiray madadaalo. halkani maaha goobteedii, waxay u baahan tahay in la badbaadiyo. in badan oo ka mid ah ayaa xanuunsan ama dhaawac ah caruurtan. Hiba waa 8 jir. jidhkeeda waxaa ka muuqda calaamado naxlin leh. aad ayay u naxdin badan tahay in la tilmaamo. nabaradii maskaxda gaadhay maalmihii ugu dambeeyay khilaafada ee Baaquus ayaa weli sii qoto dheer. weerarkii lagu qaaday Baaquus ayaa boqolaal ku dhimatay. duqaynta isbahaysigu ku burburiyeen bakhaaradii hubka ee Daesh. haddaba carruurtan oo ku soo jiray khatar ayaa haddana imika mid hor leh ay la soo gudboonaatay. toddobaadkan ciidamada Turkiga ayaa soo gaadhay xeradan, amnigiina faraha ayuu ka baxay. boqolaal ayaa halkan ka baxsaday. agoomaha halkan ku xaraysan cidina ma oga meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. weligeedba Suuriya ma ahayn meel ammaan u ah dadka la haya maxaabiista ahaa, waxaana imika dhici kartaba in carruurtaasina sidaasiba lagu waayo.